السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسا أصحابي ملكستو أتوقتان كسول هذا برنامج كينا هبين نمو هدبا وهبين نمو سردي وحدي سوق ليسو تاريخنا وحا أي كوب بيغان تاي سد حدا بيشا جنايو سنة كالباكون إيا اللحية لباتن هدبا برنامج كعاوة انتي سبادان وحينو كغاشا كين دورنا أرنتا ودالكا فنزويلا أو الدنيا دي أو نن أي ليابان تاي haddaba waxaa la isweydiinayaa maxaa isku soo beegay 1990kii 3 January maanta oo kale Mareykanku waxay ku duuleen oo ay soo xireen madaxweynihii dalka Panama 2023 Janaayo madaxweynaha Venezuela ay ku duuleen Trump oo shir jaraa'id qabtay wuxuu u hanjabay madaxweynaha dalka Colombia Cuba wuxuu ku tilmaamay ummad fashilantay waxa sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka isaguna sheegay in afka la gali karin ninka la yiraahdo Trump ninkii afka la gala oo sidaa u sameyn doono haddaba Mareykanka shir jaraa'id oo uu qabtay Trump iyadoo dhinacyada ay ka joogeen wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaandhigga abaanduulaha ciidanka ayuu u muuqday mid adduunyada ku horkaabaynaya wuxuuna sheegay Venezuela inay iyaga maamuli doonaan oo ay u magacaabi doonaan مسؤولين شركة أمريكا كانوا وحوي روا تجيشان ولا وريجيشان نقالها وضن كاس سعد بالقشي وصما يستان هذا با وضن دن أولوجيدو أيو كهب سدي نيكليرا تراب هذا با تفاصيل شيكوين كاحيش عليه سكرني تاني إنتينو كلام مغنين أينو برنامج كنا عاو كفا فاهرنا وحي سكرنا إنت كوشرو وحي سكرنا والد للسعودية دورة كلتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo hadaba barnaamijka habeenkii waxaanu ku soo qaadanaa akhbaaraadka iyo wararka wixii soo kordhay intaynu kala maqnayn waan hubaynaa si weyn uga hesheen macluumaadkii iyo wararkii aynu ku soo gudbinay barnaamijka iyagii subaxnimo iyo kii galabnimo labadaba hadaba caawa barnaamijkeena waxaynu kaga hadlaynaa gabi ahaantiis arinta Venezuela oo adduunyadu ay ka yaabatay ninkii Trump ahaa isagoo xalay weerar qaaday madaxweyne iska soo xirtay ayuu isla caawa wuxuu qabtay shir jaraa'id isagoo shir jaraa'id oo feestain ah sameynay madaxweynayaal kale u hanjabay wasiirkiisa arrimaha dibaddana wuxuu leeyahay ninkii isku taaga ninka la yiraahdo Trump wallahi waa meeshu kuwan maraya uu leeyahay meesha waxa ka dhacay waa la yaab haddaba wararkii ugu waaweynaa oo aan soo koobayno ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa ciwaan wuxuu uga dhigay sheekooyin kuwii ugu dambeeyay oo Venezuela ka yimaada Trump wuxuu soo bandhigay caawa sawirada Maduro isagoo xiran wuxuuna sidoo kale diray hanjabaado culus ayuu dad kale u diray haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in markii ugu horeysay la xaqiijiyay qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ee howlgalkii xalay ka qayb galay in ay ku dhaawacmeen sida lagu baahiyay telefishinka la yiraahdo NBC oo soo xiganaya mas'uuliyiin Mareykan ah ciidan Mareykan ah ayaa ku dhaawacmay intii lagu guda jiray howlgalkii lagu soo qabanayay madaxweynaha dalka Venezuela waxaana la sheegay in la soo weeraray diyaarad helicopter ah oo rasaas lagu soo riday oo markaa diyaaradaasi la bartilmaameedsanayay haddaba waxa soo kale wararka soo kordhay kamid ah ku-xigeenka madaxweynaha Maduro xilka laga qaaday lana qafaashay ayaa ku-xigeenkiisi waxay dalbatay in la sii daayo madaxweynaha iyo xaaskiisa waxayna ku tilmaantay arintaasu inay tahay mid sharci darro ah waxaanu codsanaynaa in madaxweynaha la sii daayo ay tiri haddaba waxa soo kale arrinkan ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka waxaana uu sheegay Maduro inuu hogaaminayay Venezuela ilaa ay halaag ku dhacday oo macnaha ay uu dhibaato u horseeday dalkaas ayuu leeyahay waxa soo kale soo saaray war madaxweynaha dalka Faransiiska Macron waxaana uu sheegay isaguna Maduro inuu dhibaato ballaaran gaarsiiyay karaamada shacabka Venezuela haddaba dhanka kale waxaa la sheegayaa Trump isaguna inuu soo bandhigay sawirro muujinaya
isaga iyo mas-uuliyiinta dowladda wasiirka arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga oo xalay daawanayay markii howlgalka uu ka socday dalka Venezuela. Trump wuxuu sheegay waxaa jiri doona wadahadallo ay la yeelanayaan oo ay la qaateen hogaamiyaha mucaaradka haweeneyda Venezuela waxayna kala tashadeen waddankaas sida laga yeelayo. Trump wuxuu sidoo kale la hadlay madaxweynaha Colombia isagoo oo digniin u diray ku saabsan habdhaqankiisa. haddaba Trump waxaa la sheegay inuu sidoo kale ku tilmaamay Cuba ummad fashilantay inay yihiin. Trump wuxuu sheegay inay magacaabi doonaan maamul cusub oo Venezuela uu yeesho oo markaa iyagu ay gacantooda ku magacaabi doonaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa isaguna sheegay ciddii gacmaha la gasho ku ciyaarta Trump inay sidan oo kale la kulmayso. abaanduulaha ciidamada Mareykanka ayaa isaguna waxa uu faahfaahin ka bixiyay howlgalladii Venezuela waxaana uu sheegay in howlgallada la fuliyay xilli mugdi ah oo magaalada Caracas laga sameeyay. wasiirka gaashaandhigga ayaa isaguna ka hadlay howlgalkii xalay wuxuuna sheegay howlgalka Venezuela inuu ahaa mid taariikhi ah oo markaas siday tahay loo fuliyay. haddaba Trump ayaa shir jaraa'id qabtay caawa isagoo dhinacyada ay ka taagan yihiin wasiiradiisa arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga wuxuuna sheegay sida ugu dhaqsiyaha badan in maamul loogu sameyn doono Venezuela. Trump waxa uu faafiyay markii ugu horeysay sawirro laga soo qaaday Maduro oo xiran waxaana uu ku tilmaamay Nicolas Maduro isagoo xiran inuu dul saaran yahay markab kuwa dagaalka ah oo la yiraahdo USS Iwo Jima waxaana la sheegay in lagu sii wado magaalada New York halkaas oo la rumaysan yahay in lagu maxkamadeyn doono. wakaaladda wararka wargeyska la yiraahdo Axios ayaa isaguna wuxuu sheegay in door ay weyn ay ka qaadatay howlgalkii la sameeyay CIA-da dalka Mareykanka oo howlgalkii ka dhacay Venezuela. wasiirka arrimaha dibadda Venezuela ayaa isaguna ka hadlay waxa dhacay oo waddankiisii madaxweynihiisii ku dhacay wuxuuna sheegay in markaa ay ahayd arrin oo geed aan loogu soo gaban oo lagu xadgudbay qarannimada dalkiisa. New York Times ayaa iyaduna waxay ka hadashay inuu jiray qof Venezuelan ah oo la shaqaynayay Mareykanka oo Maduro markii la soo xirayay hagayay ciidamada Mareykanka ee howlgalka sameynayay. waata marka wararkaas oo dhan waxay ahaayeen kuwii caawa soo dhacay adduunka oo dhan sheekada dhacaysata waa wax la yaabay. kaaga daran dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin Jarmalka iyo Faransiiska waa laga hadalsiiyay inuu saxan yahay Trump hadla leeyahay labadaba war soo saareen Maduro ay ku weerarayaan ilaa halaagu dalkiisa ku waday in laga qabto way fiicneeday leey laakiin dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin bacalika weerar dhaay soo hadla waxa kan inay saxan yihiin oo adagu ku dhaqaaqay. laakiin ra'iisul wasaaraha Britain isagu mar hore iska beeniyay wuxuu yiri annaga kuma jirin hawshaas markii la soo hadal qaaday la yiri Ingiriis inuu ku jiray laga yaabaa markaas ay iska diideen Ingiriisku ra'iisul wasaarahooda wuu diiday. haddaba marka sheekada marka Maduro halkaas ay maraysaa waxaa noo soo socda arrin la yaab leh oo ku saabsan 3 Janaayo maxay Mareykanka madaxweynayaal markay weerarayaan u weeraraan waqtiga ugu beegaan yaa u fiirsha ma nooc saaxirka ka mid ahaa sidee wax u jiraan tafaasiil iyo warbixin Al Jazeera ay ka qortay ayaanu idin la wadaagi doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeenimo waa habeenimo sabti axad soo galayso qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu barinaa. haddaba qaybtan warbixin la yaab lahaa socota waxba isku aaday 1990 3 Janaayo Mareykanku waxay weerar ku qaadeen Panama waxay soo xireen ninkii madaxda ka ahaa halkaas madaxweynahoodii isla sida maanta dhacday oo kale ninka markii hore wuxuu saaxiib la ahaa Mareykanka kadibna way iska hor yimaadeen waxa amarka in la soo xiro bixiyay Bushkii aabaha ahaa ayaa wuxuu yiri ninka la soo xiro maxaa lagu soo eedeeyay sida tabta ninkan loo soo eedeeyay
مخدرات وكجرعسدا مريكان كوكانا كانوا سمايا انتي وصاحب كلا مريكا كان مخدرات مجرين ما تمرك صدن اللي حسنوا كذب مريكان كو حيسو حريين مدحوينه كله isla taariikhdii maalinkaas la qaatay 3 Janaayo oo fiirsada waa Soomaaliin waa 36 sano kadib isla sidii madaxweynahaas lagu eedeeyay muqaddaraad iyo jinni Mareykanka inuu kana lagu eedeeyay hadda waxa loo socdaa madaxweynaha Colombia wadankiisa isna la qabtaa rabaa eedaynu ku sii bilaabay Trump uu leeyahay masaanic kokaayinta lagu sameeyo daroogada warshado ayaa ku yaala dalkiisa Mareykankuna keena sheeko waalan marka socota Mareykankii hadda waxa leeyahay wadamada Latin America oo dhan rabaa inuu qaato sharci iyo nidaam iyo wax ka hor istaaga male haddaba warbixinta Al Jazeera aan tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay madaxweynihii la dhahayay Noriega iyo Maduro waxa la wada xiray 3 Janaayo 36 sano kadib isla tabtaas oo kala loo xiray warbixintu way sii socotay waxa leeyahay 3 Janaayo 1990 Mareykanku waxay xireen madaxweynihii amarka bixiyay wuxuu ahaa George Bush kii aabaha ahaa waxaana la soo xiray madaxweynihii Panama Manuel Noriega 3 Janaayo ayaa la soo xiray 36 sano kadib 2023 Janaayana waxa asna la soo xiray madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro haddaba arikan su'aal weyn ayaa ka taagan ay leedahay Jazeera ma wax isku soo aadaya mise qorshayaal kale oo Mareykanku xilliyada ay wax ku baarbaaraan oo ay ku weeraraan ayaa jira su'aal weyn in walba marka meel u laaday qaar waxa iska soo aaday qaar waxa leeyahay nimanka gaalada iyaga ku horeeya sixir iyo waxa kan iyo waxbay ku fiirinayaan nidaam iyo waxba ninkii xalay waa lagu dago wala soo qaat qaar waxa leeyihiin isaga wax ku ogaa qaar waxaas wax ka jira ma jiraba waxa meesha socdo waa yaabisa marka waxa leeyahay maxaa isku soo beegay 3 Janaayo madaxweyne wadankiisa inta la weeraro la soo xiraayo Mareykanka la keenayo madaxweyne isna sidii oo kale 36 sano la sameeynayo isku si wax lagu eedeynayo marka waxa leeyahay waxa soo dhan isku baadi karaan waxa isku aadi kara mala meesha farsamo kala jirto wala isku aadiyay sabab la isku aadiyay hadda